رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. السلام رمضان عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام الدمان والله الصوماليات أنكو مدوني سوقان بحدوين فوركس تريدين إن شاء الله هلكم waxaan kusoo gudbin doonaa waxyaabihii aan soo wadnay muhiimka u ahaa dhallinyaradeena dhammaantood sidaad nooga barateen wadani FX Academy waxaan soo gudbin jirnay casharo aad iyo aad u qiimo sareeyo. wax badan ayaan kala maqneen, howlo mashquul adduun iyo horumar aan anaga ku tiigsanaynay iyo waxyaabo badan oo aan ummadda u haynayba. markii aan aragnay dhallinyarteena inay ku dhibaataysan yihiin istaraatiijiyadaha qaar, maxaan ku dhahay akoomadii ay gudbi laayihiin sababo la xiriiro dhanka istaraatiijiyadda oo aan si fiican oo loo fahmaynin, iyo maxaan ku dhahay in suuqii sida wax uga rabeen ay uga sameyn laayihiin. qof walba uu ciil bixi laayahay, ciil ayuu u qabaa inuu forex lacag badan ka sameeyo oo isku filnaansho ka gaaro, dhaho maanta waxaan ahay qof isku filan. qof walba wuxuu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay hiigsi iyo hami ayuu suuqan ka leeyahay. qof aan jab soo marinna guul ma gaaro. dhammaantiin waxaa hadda aa ku jirtaan waa la soo wada maray, annagaa soo marnay, qof walbaa soo maray. maantana qofkii dadaalay horumar wuu gaaray, iyo maxaan ku dhahaye inuu isku filnaansho la taaban karo uu gaaray, ama uu noqday qof profitable trader ah. qof walba hamigu uu leeyahay meeshuu u ordayana waa taas. haddii bil kasta suuqan aa faa'iido kala bixisid oo aa ku maamulinaysid howlahaaga gaarka ah, waa guul aana qof walba gaari karin ilaa qof dadaalay oo dhabar adeega maahe. sidaa in badan la socoteen waxaan aniga ku trade garaynayay price action, kaasoo ii suurageliyey maanta meesha aan joogo alxamdulilah. haddii aan si hoose idinkugu taabto, almost hadda aniga waxaan haystaa hal akoon oo 100,000 oo FTMO ah. 10% kaliya haddaan bishii ka sameeyo alxamdulilah waa almost 10k. waa iga badan tahay, waana maasha allah. waa dareemi kartaan last week kaliya qofkii nala socday almost waxaan sameynay 24%. markii laga jaro 2 trade oo khasaare aan ku galnay oo 1.3 ah, almost waxaa u malaynayaa 22 adiga haddii la iska dhaho 22 iyo wax yar waa net profitka. marka taas waxaa noo fududeysay wixii aan baranay oo aan hirgelinay iyo balaankeena oon ku taagnaanay. marka waxaan rajeynayaa inaa idinkan sidaas oo kaleeto aad guushaan gaarna wada gaari doontaan. qof guusha gooni uma laha, qof kasta siduu u dadaalo ayay ku xiran tahay. markii aan aragnay dhalinyaro badan oo nala soo xiriirayso, taasoo naga codsanay istaraatiijiyada aan baranay ilaahay noo fududeeyey meeshaan ka soo baranay inay ku adag tahay fiigii ay bixin lahaayeen. oo istaraatiijiyadan soomaalida waxbay qarqariyaan, ani laakiin ma jecli inaan waxba qariyo. sida xaqiiqda ani waxaan ka soo bartay gorilla trading. waa community aad u fiican, laakiin dhalinyarteena ayna u babacdhigi karin dhanka dhaqaale markii la dhaho, iyo qaarkood caqabad dhanka luuqadda ka haysato. almost bishii lacag $130 ku dhow ayaa lagu dhigtaa qof dhalinyaro ah oo aana shaqo haynin, oo maanta dhan computer ka kor jeedo, oo raba inuu guul ka gaaro. uu jeclaan lahaa inuu ka mid noqdo, ma awoodi karo $130. qaarkoodna haddii awoodi lahaayeen, luuqaddii ayaa ayagana caqabad ku ah. markaan aragnay walaalo badan oo nala soo xiriirayo oo taas dhib ku tahay, annagana ilaahay cilmigii noo fududeeyey wixii aan fahnay long term aan ku jirnay, waxay ii soo gudbiyeen
mar hore waxay iisoo gudbiyeen inaan u furo website sida gurilo u shaqeeya laakiin ku baxayso luuqadeena hooyo af Soomaaliga si ardayda wax walba u fahmaan backtestingkii ardayda lala sameeyo qaab wax loo backtest gareeyo la baro istiraatiijiyada meesha laf dhabar ku ahna waa backtestingka qofka hadduu backtestingka fahmi waayo ma awoodi doono in uu fahmo istiraatiijiyada sida u shaqeyso sida wax looga sameeyo marka la galo marka laga joogo marka laga baxo waxaasoo dhan marka walaalihii markay iisoo gudbiyeen ku dhawaad intaa hadda aan noo diiwaan gashan ahayno waa dad ku dhow 40 qof oo intooda badani dalka dibadiisa ay jiraan dadkaas waxay rabaan dad ugu tusaaleeyo u noqdo mentor hago ayaga nagu dhiirageliyey naga codsaday inaan hawshan u sameyno hadda almost 40 qof haddii website-ka dee intuu hadda hawshiisa waa socotaa casharadiisii waa ayagana waa wadnaa haddii hawsha ay soo gabagabowdo u malayn maayo 40 qof keliya ku koobnaan doonto oo inta u baahan ee Soomaali ah oo istiraatiijiyadaha kale ku dhiban ku wareersan wax ka qaban la ayaan xisaab lahayn marka walaalaha kalena istiraatiijiyadaas ku dhibaataysan waxaan dhihi lahaa suuqan haddaa rabtiin inaad guul ama meel wax la taaban kara ka sameysaan istiraatiijiyad fudud oo macnaha meesha aad ku gaarsiin karto istiraatiijiyadan aad u fududahay SL-keeda wuu yar yahay SL-keeda waa 12 bib maxaan ku dhahay backtestingkeeda wuu fudud yahay haddii aad xoogga saartid wax qof walbo oo maskax Ilaahay siiyo uu fahmi karo laakiin haddaa isticmaasho istiraatiijiyad SL-keeda 50 bib yahay oo 200 bib markuu trade ku maraayo 1 to 4 maraysid ma fududo inaad ka gudubtid challenge maalmo kooban lagu qabanayo profit target laga rabo maximum loss iyo daily loss leh ma fududo inaad ka gudubtid istiraatiijiyadan waxa ku sii fiican tahay dadka hadda isticmaalo boqolkiiba 80 up to 90 waa dad funded ah oo akoon life haysto akoon real oo lacag lagu shubto lacagtaada lagu shubo waa laga tagay waxaa lala shaqeystaa kambaniyadaas isbuuc kasta lacag lala baxaa bil kasta lacag lala baxaa waxaas ku fududeynayna marka hore waa inaad adiga horta asad noqotid asad maxaa ka wadnaa adiga inaad wax baratid markaa wax baratid wax walba ayaa kuu fududaan doona marka insha Allah halka waxaan kusoo gudbinaynaa akademiyadeena qaabkay noqon doonto qaabkay u shaqeyn doonto markii website-ka iyo application-ka aan soo wadno oo soo baxaan oo diyaarintooda socoto la soo dhameeyana hawsha waa gabagabo insha Allah waxaan wada tagi doonaa akademiyada gudaheedii website-kii aan tagaynaa qaabka casharada meelaha ay ku kala jiraan qaabka loo daawado qaabka loola baxo forumkii ardayda ay ku sheekaysanayeen waxaasoo dhan wax complete oo saaran oo la fahmi karo ayaa insha Allah keeni doonaa waxaana insha Allah rajaynaynaa community-ga hadda gorilla uu haysto waa ku dhawaad 4000 ilaa 5000 qof lagu qiyaasaa dadkaas dad ka badan in annagana aan oo Soomaali ah intaan soo saarno aan wadi doono hawsha aan insha Allah dadkeena Soomaaliyeed oo dhan aan istiraatiijiyadan fudud qof walbo uu wuxuu rabo ka sameyn karo aan insha Allah gaarsiin doonaa si ku wada fahmi lahaayeen hal midna aan ku daray dadkeena Soomaalida waxaa iskaga khaldan qofka haddii uu noqdo profitable trader wuxuu ku leeyahay waa akoonkiisa maamusho oo uu iska dhaafo dadkan wax barayay dadkan uu hawsha la waday waxaan waxa la dhahaa multiple income wax la dhaha jiro adoo faa'iidadaada sameynayo suuqa ay ka shaqeysanayo caqabad kuuma noqonayso inaad dad intaa xiiso u soo gashid ayagana wax bartid ayagana ay wax bartaan adna wax ka sii faa'iidid hadana ninkaas arkaysaan maanta Joshua Banker nin cadaan ah lacag aana la qiyaasi karin ku trade gareeyo millions of dollars hadduna billion ku dhaweynba ayaa hadana bil kaste 4000 qof wuxuu ka qaadaa lacag ku dhow nus milyan 500,000 dollar lacag ku dhow ka qaadaa imagine uma baahno saas si hadii loo fiiriyo 500,000 dollar adoo shaqadaadiina wata hadaa heli kartid maxaa kuu diidaya marka intaas isbuuci 3 waqti soo gashid waqtida jaaniska haysta caawisid macallimiin kale ay kula shaqeeyaan oo waxaan fahansan oo expert ah adigana aan lacag sameeysid marka Soomaalideena maskaxda ha furan hadda aniga waxa jiro yar aan isla soo dhameynay almost hadda asna wuxuu leeyahay akademiyad waxaa la dhahaa Krish ayaa la dhahaa
waa from Hindia laakiin London ayuu ku nool yahay. Ninkaas maanta akademiyadiisa $150 ayaa waxaa lagu dhigtaa qaybta maxaan ku dhahay goldiga, silver gold iyo wuxuu leeyahay platinum. Marka annaga Soomaali haddaan nahay waa iska hor imaaneynaa, waa macaaradeena waxba inaan ma rabno inay keena kaleeto guul gaaro. maanta hadduu qof naga mid guuleysto oo guuleysan karnaa. marka insha Allah waxaan sii galeynaa hawsha iyo qaabka aan u wadi doono oo sharaxaad insha Allah soo aan la socono. wixii su'aalaha waxay noo noqon doonaan cashir kale insha Allah oo aan su'aalaha soo diraysiin anna ku soo jawaabi doono insha Allah. hadda kadib waa active ayaan noqonayaa, waan soo laabtay wax walba insha Allah waan ka caawin doonaa haddii Ilaahay raado. haddaan ku soo dhawaano xiisadeena maanta, ku soo dhawaada wadani FX Academy full ah insha Allah hawsheeda halkan ka sii galeynaa. halkan waxaan ku soo gudbinaynaa waxyaabaha aan qabano waxay u kala baxaan. cashirkan wuxuu noo noqon doonaa part 1, part 2 insha Allah waa keeni doonaa. wadani FX siday u shaqeyso haddaan qeexno, waxaan gudbinaa kan koowaad waxaan kusoo insha Allah kusoo bandhigi doonaa sida u shaqeyn doonto wadani FX Academy iyo hawsheeda dhan. tan labaad waxaan gudbinaa akoonada challenge-yada dhalinyarta ku dhiban inay gudbaan. qofkii marka waxaan u fududeynaa akoonkii inaan ka qabano verification-kii challenge aan u gudbino, fee aan ka qaadno, markuu akoonka real gaaro inaan ku wareejino ama asaga ha maamusho ama ha loo sii maamulo. akoomadaas waxaa ka mid ah sida FTMO, My Forex Fund, The Funded Trader, way badan yihiin, saddexdaas ugu caansan hadda. iyo tan kale oo ah inaan ka caawino affiliate linkska. kambaniyada waxay isticmaalaan linkiyo, waxaa jiro kuwa dad scammers oo linkiyo been intay soo qaataan lacagtaada inay isku dhacaan isku dayayo. anaga marka waxaan sameynaa linkiyadeen kambaniyadan siiyaan ayaan dadka qofka u dirnaa, uu iska diiwaan geliyaa. waxaan ka caawinaa wixii su'aalo ku adkaada, wuxuu English ahaan u fahmi waayo, waxyaabaha laga rabo shuruucda, maxaan ku dhahay sida drawdownka kambaniyada ku kala duwan yihiin haba u darnaatay My Forex Fund. insha Allah cashirkaas iyo qaabkoodii waxaas dhan qaabka oo gudbino waxyaabaha aan shuruudaha ee maraan qofka in loo gudbiyo waxaas oo dhan waxaan ugu tagi doonaa part 2. laakiin cashirkeena maanta waxaa waaye qaabka wadani FX ee u shaqeyso, akademiyadaas qaabka u shaqeyso waaye. halkan ay kasii wadaynaa cashirkeena. wadani FX Academy maxay tahay horta? wadani FX Academy ma aha goob signal lagu bixiyo ama ma aha. wadani FX Academy waa machad waxbarasho laguna barto suuqa sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaano Forex Exchange. sarifkaasaan dadka barnaa sida suuqan u shaqeeyo, annagoo aad u fududeynay isticmaalayno luqadda suuqa. luqadda suuqa maxay tahay? waa price action-ka. indicator ma isticmaalno, wax kaloo gooni ah ma isticmaalno, waxaan isticmaalaynaa luqadda suuqa oo ah price action-kii si fudud oo casri ah. waliba waxaan u diyaarinay qaab fudud oo casri ah, koorso dhameystiran ka bilowdo beginner oo bilow ah, intermediate oo dhexdhexaad ah, iyo advance oo dhameystiran. waxaa jiro dad hadda ku cusub oo looga bilaabayo maxaan ku dhahay forex maxaa la dhahaa, dad dhexe oo wax fahansan oo wixii iskaga dhex yaacsan yihiin, iyo dad dhameystiran oo wax walba fahansan laakiin istiraatiijiyadii interiyadii qaabkay u qaadan lahaayeen, say macnaha psychology-ga u maamul lahaayeen, say trade management u sameyn lahaayeen, waxaasoo dhan ee caqabad ka haysato. insha Allah waxaan ku dadaalaynaa min bilow ilaa dhammaad in qof kasta heerka uu joogo taan kala jaan qaadno, aan insha Allah u dhameyno, aan ka caawino inuu guuleysto sida anaga u guuleysanay. guusha markastana waan ku soo celiyaa, qofna gooni uma laha. qof kasta intuu dadaal bixiyo ayuu abaalkeeda helaa. koorsadan waxay ku bixaysaa afkeena hooyo af Soomaali ah, maadaama luqadda English koorsada ay ka imaatay oo Englishkii aanan ahayn dadkii u dhashay haddana nagu yara adag yahay, dadkii ay fahmayaan laakiin wax badan uu ka fakanayo. marka waxaan isku dayaynaa inaan si af Soomaali ah aan ku fahansiino, Englishkaas kaga qornaato sida beginner oo kale aan iska aado, laakiin in wixii fahankeedii aan jilcino oon fududeyno oo qofku boqolkiiba suu ku fahmi karo aan insha Allah ugu fududeyno hadduu Ilaahay yiraahdo.
haddaan hore usii soconno weli waxaan kusii soconaa Udemy FX Academy siday u shaqeyso. Koorsadan waxay ku bixaysaa qaab online ah waxayna ka bixaysaa bogga macadka udenyfx.com. macadku wuxuu leeyahay website lagu magacaabo udenyfx.com. sidoo kalena wuxuu leeyahay meel ardayda ay ku wada sheekaystaan, macallimiintana la joogaan, laguna magacaabo forum. sidoo kale macadka wuxuu leeyahay application Udemy FX Academy la yiraahdo oo Play Store aad kala soo degaysaan, taleefankiina kula soo degaysaan, casharada dhan meesha ka daawanaysaan, trade ID haddii la soo dhigo meesha kala soconaysaan, wax walbo announcement ah wixii maxaan ku dhahay taliyo tusaale meeshaasaan nagu soo diraysaan. wixii kugu adkaada wuxuu leeyahay qol gooni ah oo su'aalihii jawaabaha waa soo dhigaysaan, macallimiinta iyo dhammaan waan kaaga jawaabeynaa. waxaan soo wadnaa insha Allah wax casri ah sida dadka cadaanka ay wax u bartaan inaan u barano. insha Allah hore aan usii soconnaa cashirkeena. weli waxaan kusii soconnaa Udemy FX Academy siday u shaqeyso. bogga macadka waxaa la soo gelin doonaa 3 video isbuuc kasto sida macadyaha kaleeto. 3 video waxay kala noqon doonaan. waxaa la soo gelin doonaa forecasting ama falanqeynta suuqa maalin walba oo axada, maadaama sabtida iyo axada suuqa uu xiran yahay. maalinka axada ah oo isniinta ay soo geli rabto suuqina isniin u furmaayo ayaan waxaan soo gelin doonaa video dhammaystiran oo aan ku taxliilinayno suuqa, waxyaabaha aan ka rajeynayno, meesha uu marayo, waxa dhici karo, annagoo fiirinayno kuna fiirinayno luuqadii suuqa ama price actionka indicator aan isticmaalaynin. suuqa wax walbo asaa kuu sheegayo, wuxuu noo sheega ayaana ka qaadanaynaa, ardayda usii sheegaynaa si mar kasta oo wixii loogu celceliyo ardayda ay u fahmaan oo ugu fududaato in berito asaga uu sameysto falanqeyntii suuqii uu sugto, markii meeshii uu rabo imaadana uu ka faa'iideysto. videoga labaad asna wuxuu noqon doonaa waxa la dhaho trade recap. trade recap muxuu yahay? trade recapka waa tradyadii uu qaatay macalinka. tradyadii uu macalinka qaatay hadduusan qaadanin isbuuca labadaas maalin ee hore trade meesha hadduu qaatay lacala meesha uu ka qaatay, sababta uu ku qaatay, waxayna soo geli doonaan. videogaas wuxuu soo geli doonaa maalin arbaca ah, isniin iyo talaado iyo arbacada. tradyadii uu macalinka qaatay ama hadduusan qaadanin suuqa xaaladuu ku jiro xogtaasoo dhammaystiran ayuu ku siin doonaa. waxaana la dhahaa trade recap. forecasting wuxuu leeyahay books u gooni ah oo wixiisa la soo geliyo ma isku dhex darsamayaan. bookskiisa tegaysaa, forecasting ku qoran, waa daawanaysaa maalinka axada. haddana arbacadii waa daawanaysaa. haddana maalinka maxaan ku dhahay jimcaha trade recap saddexaad ayaa haddana videoga saddexaadna wuxuu noqon doonaa waa trade recapkaasna wuxuu soo geli doonaa maalinka jimcaha. saas waxaa ku haysanaysaa 3 video. 3daas video maxay kaa caawinayaan? forecasting waxaa baranaysaa suuqiisuu macalinka u falanqeynayay, meeshuu ka fiirinayay, maadaama casharadii aad soo dhigatay oo ay aad soo fahantay oo advance aad noqotay. suuqii ayaa waxaa noqonaysaa qof suuqi ilaashanayo, inuu haddii uu ka raadinayo uu siiyana raba inuu ka faa'iideysto. waxaan u maleynayaa inaad fahanteen. qofkii wax ku yar adkaayana ama fahmi waayo su-aasha hana soo weydiiyo ama videoga ha joojisto, dib ha ugu ceshto. insha Allah youtube-keenu yaali doonaa meeshaasaan insha Allah wixii xog oo dhammaystiran iyo telegramkeena Udemy FX Academy ah kala socon doontaan. linkiga telegramka yaalina insha Allah waa nagala soo xiriiri kartaan wixii tali tusaale su'aal iyo jawaab wax walba insha Allah anaga insha Allah ka caawinayno. marka waxaan filayaa inaad fahanteen forecasting, trade recap iyo trade recap oo laba isbuucii 3 mar 3 video mid kasta wuxuu leeyahay box gooni u ah oo ku dhex yaalo macadka gudihiisa. haddaan hore usii soconno weli waxaan ku soconnaa Udemy FX Academy siday u shaqeyso. sidoo kale waxaa jiro maalin maalmaha ka mid ah xiisad live ah oo backtesting ah, kaas uu sameynayo macalinka. macallimiinta mid ka mid ah aan ku qori doonaa xiisad gooni aan qabsan doonaa, maalin ardayda isku fahmaan oo maalin macquul ah, chance la wada heli karo in intaan aan xiisadaas si live aan usoo galno, aan backtest hortiina lagu sameeyo si wixii aad u aragtaan
inuu wax idinkana ay fahmi kartaan oo fudud uu yahay. Sidee loo sameynaya marka backtestingka? Backtestingka markuu macalinka sameynayo waxaa loo diray waxaa jiro maxaan ku dhahay ayadana live labaad oo ayadana marka ardayda macnaha khaladaadka looga sixi doono ayagaa backtesting soo sameynayo. Waxaa loo dirayaa maxaan ku dhahay bil kamid ah bilaha iyo beer gooni ah sida OUD USD oo kale waxaa lagu leeyahay 2021 January backtesting kusoo sameey keligeed halkaa bil oo soo sameynaysaa wixii aad barataa raadinaysaa maxaan ku dhahay trade view gadanaysaa waa jarjaraysaa suuqa waa fasaxaysaa waa soo note gareynaysaa journalna soo sameynay screenshot ka soo qaadaysaa inta trade ka qaadatay. waxaan qabsanaynaa xiisadaha kamid ah waa la soo wada gelayaa arday gooniya oo tiro kooban ayaa la qaadanayaa. ardaydaas habeenkaas ama waqtigaas waxaa laga qaadayaa maxaan ku dhahay exam yar oo ah wixii ay soo sameeyeen in laga saxo wixii khaldan wixii saxan la isla fiiriyo kadibna la dhaho meeshaan ku saxan tahay meeshaan ka khaldan tahay. taas waxay u fududeynaysaa qofka markuu backtesting sameeyo badan inuu istiraatiijiyadii fahmo kalsooni uu helo oo waxan uu raadinayo uu barto. markaas wax walba easy ay ku noqonayaan emotionka xataa uu ka yaraanaya waayo waxa taqaana markaa raadinaysid way fududahay inaad heshid. sidoo kale waxaa jiri doono su'aalo live ah waxaasoo dhan waxay ka dhex dhici doonaan bogga macadka markii oo saan oo kaleeto wixii dhan oo isku soo dhamaadaan backtesting macalinka sameeyo ardayda loo diro ayagana kasoo jawaabaan ayagana sameeyaan qofka su'aal kusoo macnaha kusoo laabata haddii uu forumka meesha ardayda ku wada xiriiraan uu soo dhigo waa loogu jawaabaa. laakiin waxaa jiri doonta xiisad gooni oo live ah oo qof walba su'aal qabo meesha uu ka qabo ayadan laga qabtiri doono loogana jawaabi doono haddii Ilaahay yiraahdo. taasna waxay ka dhex dhici doontaa macadka gudihiisa qofkii xubin ka ah oo kaliya ayaa heli doona. qofkaan xubin ka ahayn oo banaanka macadka joogo oo isdiiwaan gelin oo ardayda macadka aan kamid ahayn communitygaas ku jirin insha Allah ma heli doono chanceskaas. Wadani FX Academy qofkii iska soo diiwaan geliya oo xubin ka noqda markuu ku soo biiro akademiyada muxuu xaq u leeyahay ardaygu wuxuu xaq u leeyahay koorsado dhameystiran haddii bil uu iska diiwaan geliyo 30kiisa beri inuu koorsadaas ay u wada fasaxan tahay caawin joogto ah oo laga caawin doono wixii ku adkaada ama dhiba su'aalaha oo qabo oo looga jawaabo. sidoo kale ardayda advanced ah waxaan siin doonaa waxaan u sameyn akademiyada waxay leedahay qayb gooni ah oo trade idea lagu diro trade idea dadka advanced trade ka fahmi karo suuqa ka shaqeysanayo ilaashanayo ayaa waxaan siin doonaa trade idea. tradekan halkaasaan ka sugeynaa qaabkaas duu sameeyo insha Allah waa qaadanaynaa isha lagu waayo hala socdo tradeada aan galeynaa insha Allah oo aan u soo update gareyn doonaa. sidoo kale ardayda advanced ah waxaan u sameyn doonaa kuwooda fundedka ah. funded waxaa laga wadaa qofka markuu challenge verification ka gudbo funded ayuu noqdaa account real loo dhiibaa. dadka akoonka realka ah haysto in group gooni ah akademiyada dhexdeeda inta uga furno aan sidoo kale ku caawino bil kasta si faa'iido joogto ah uga sameyn lahaayeen suuqa sida anaga uga sameynayno kaleeto. taasna waa faa'iido kale dheeri ah in arday la hago hadhow markuu isku filnaado qofna kuma haysto kuma dhahayso ilaa maadaama inta wax ka baratay joog oo meeshan taagno oo horaha u soconin. hadda isku filnaatid easy akademiyada waa ka sii mid ahaan kartaa haddaa rabtidna waa iskaga bixi kartaa. haddii dee qof perfect ah noqotid oo naftiisa si fiican u maalgashtay oo dhiso akademiyada ay kuu baahatana dee macallin baa ka noqonaysaayo anagana macallimiinta bedelaysaa anagana nasinaysaa wixii aan wadnay ahaa inaan dadka u faa'iideyno aan barno ayaa adin meeshaad ka sii wadaysaa. waxaan imaanay guntii iyo gunaanadkii wixii talo iyo tusaale ah ama haddaad su'aal qabto noogu soo dir emailkeena wadanifxacademy@gmail.com ama telegramka wadani FX Academy waxaa saaran linki oo supportka wadani FX linkigaas ku dhufanaysaa wixii su'aal qabto ama gmailkaas noogu soo diraysaa insha Allah sida ugu fudud aan ku soo jawaabi doonaa.
wixii aan khaladnay wixii ka ahdan dhanka shaydaanka wixii aan saxnayna ilaahay ayaa nagu aadiyey alxamdulilah dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan soo wadnaa insha allah wix dhalinyarteena ay ku nasan lahaayeen annaga aan ku nasanay ayagana si noogu nasan lahaayeen marka insha allah positive aan noqono si aan guul u wada gaarno aan dadkeena Soomaaliyeed rafaadka shaqo la'aanta maxaan ku dhahay wax qabad la'aanta uga baxno aan hore ugu socono dhammaantiin waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته